رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول فتاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. walaal horay makuu suurta gashay inaad ka qayb gashid tababar nolosha guurka ku saabsan? waxaa u diyaar garownaa anaga walaalayaal inaan qaadano tababaro ku saabsan waditaanka gaadiidka. qof walba oo naga mid ah haddii uu rabo inuu wado aaladaha la wada ka mid ah waxaa habboon inuu qaato tababar kadibna imtixaan uu galo. kadib ayuu qofkaas helayaa shahaado u ogolaanayso inuu wado aaladan la wado. haddii uusan ku baasin imtixaankaas dabcan imtixaanka inuu ku celiyo waayo waxaan laga yaabaa in laga dalbado inuu tababarka ku soo celiyo mar labaad. intaana badan waxaa laga yaabaa inay qaataan tababar ama barasho ama dowrooyin ku saabsan luqadda ingiliishka ah. kadib ayaa qofkaas imtixaan galayaa, kadib ayuu helayaa shahaado. shahaadadaas uu helay ayaa waxay u noqonaysaa martabad uu gaaray ee luqaddaas ah. badankeen waxay qaataan tababaro ku saabsan maxaa la dhahay aaladaha computerkii waxyaabaha noocaas ah. walaal ka mid ah walaalaha wuxuu ka sheekeeyey in si uu u wado maxaa la dhahay dayax gacmeedka kor cirka oo ugu soo wado 2 sano ayuu dhulka tababar ugu qaatay si maalmo yar uu ugu soo wado dayax gacmeed cirka. waxaa aaminsanahay hogaaminta qoyska inay aad uga muhiimsan tahay hogaaminta aaladaha iyo waxyaabaha noocaas ah. qoyska iyo usrada hogaamintooda inay tahay mid aad uga adag oo uga dhib badan gaari in la wado ama aalad la wado. in la aado dhanka guurka waa mid aad uga kulul in la aado dhanka iyo cirka dayax gacmeed la qaato. maxaynaanu u qaadanaynin tababar ku saabsan nolosha guurka? hadda ayaan dhammaanteen qaadanaynaa tababar ku saabsan nolosha guurka. adduunka oo idil walaalayaal wuxuu u jeesanayaa maalmahan dhanka tababarka iyo tadriibka iyo diyaarinta. wasaaradaha oo dhan ee dawladaha hormaray oo idil waxay leeyihiin tababarayaal iyo ta'hiiliyaal iyo tadriibiyaal dadka u tababaro shaqadoodii iyo howlaha ay qabanayaan. wasaaradda caafimaadka waxay leedahay tababarayaal. wasaaradda maxaa la dhahay xiriirka waxay leedahay tababarayaal. wasaarad kasta waxay leedahay tababarayaal. tadriibka iyo ta'hiilku wuxuu noqday fan caadi ah oo la barto. maxaynaanu u baranaynin nolosheena ku saabsan dhanka guurka? hadda waxaanu qaadanaynaa tababar ku saabsan nolosha guurka. wuxuuna ka koobnaan doonaa 30 xalaqadood ee barnaamijkan tababarka nolosha guurka الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. waxaan maqlay wadamada qaar ee islaamka caalamka islaami si aad qaadi sharci ugu geysid aqdi sharci ah oo si uu kugu tasjiiliyo waxaa laga rabaa inaad soo gudbisid oo ku soo dartid warqadahaaga dokumentiyadaada aad soo gudbinaysid warqad cadeynayso in aad qaadatay tababar nolosha guurka ku saabsan. warqadaas hadaada wadan oo biduun waraqa tahay laguma guurinayo. gabadhana sidoo kaleeto lagama guurinayo. dokumentiyada ay soo gudbinayso waxaa laga rabaa inay ku soo darto warqad cadeynayso in ay qaadatay tababar nolosha guurka ku saabsan. dhahayso qofkan wuxuu qaatay tababar ku saabsan nolosha guurka. warqadaas iyo dokumentiyada kale aad soo dhamaystirtay darteed ayaa lagu guurinaya. haddii aad soo dhamaystirayso oo warqadaas la imaawayso waa laga cudur daarnaya oo laguma sameeynayo. arrinkaas wuxuu u ahaan waayay mid ka jiro caalamka islaami oo dhan ficnaan laheeda inuu ka jiro. hadda waxaanu qaadanaynaa tababar ku saabsan nolosha guurka. aabayaalku waxay ahaayeen markii horeeto kuwa u tababaro caruurtooda dhanka guurka. maanta tababarku afwan aad ayuu u daciifay. ila dhageysta sheekadan. mid kamid ah walaalaha culimada ee maanta mujtamaca islaamka caalamka islaami sharafta ku leh kamid ayaa waxa uu ka sheekeynayay wuxuu yiri marka aan guursaday aabahay ayaa ii imaaday
asagoo ka mid ah dadkii ii tahniyada iigu imaaday markuu ii tahniyadeeyey kadib aabe wuxuu igu yiri waxaa iila imaataa warqad iyo qalin rasaas iyo minxo hadalka oo aabe ii dhahay waa la yaabay sababtoo ah aniga hadda waxaa nin caruus hadda oo ku soo tagay gurigiisii iyo qalinkiisii iyo buwaagtiisii iyo wixiisii ka soo tagay agabkiisii oo idil oo hadda caruus aabe wuxuu ku yiri aabe inta ma haya aniga aabe wuxuu yiri dag ilaa aad igala imaatid qalin iyo buug iyo tirtire wuxuu yiri waan dagay waana la imaaday kadib aabe wuxuu ugu yiri ku qor warqadda aabe maxaan qoraa waxa rabtid qor waa qoray yiri wiilkii marka qoray aabe wuxuu ugu yiri tirtir waan tintiray kadib aabe haddana wuxuu ugu yiri mar labaad qor waxaan ku yiri aabe ishaag fadlan maxaa iga rabtaa wuxuu ku yiri aabe waxaan ku leeyahay qor waan qoray ayuu yiri marka aan dhameeyo qoraalkii wuxuu yiri tirtir waan tirtiray qor waan qoray tirtir waan tirtiray kadib haddana wuxuu yiri qor arjoog aabe maxaa iga rabtaa fadlan ii sheeg kadib aabe wuxuu yiri wiilkaygu guurku wuxuu u baahan yahay tirtire haddii aadan guurkaada u wadan tirtire aad ku tirtirtid waxyaabaha aan ku farax gelinaya xaaskaada samayso haddii xaasku aysan wadan tirtiro ay ku tirtirto waxyaabaha aan farax gelinaya ninkeedu ku samaynayo warqadda guurkeenu maalmaha koowaad ay buuxsamaysaa oo madow iyo maxaa la qashin iyo cudad ka buuxsamaysaa hooyooyinku iyo aabayaalku waxay ahaayeen kuwa u tababaro caruurtooda dhanka guurka maanta ta'hiilku iyo tababarku waa mid aad u yar waxaanaba ka cabsanaynaa inuu noqdo mid dabagedisan oo nooc kale dhalinyarada loo tababaro sidaa darteed ayay walaalo barnaamijkan inoogu ahaaday tababar dhanka nolosha guurka ku saabsan talaaqa furiinka adduunka caalamul islaami mana rabo in maxal dhaaniga ay ku abuuradinka naxdin iyo waxyaabo xumaan laakiin waa wax dhacday nasabka talaaqa caamul 1991 wadamada carbeed kamid wuxuu ahaa furiinka wuxuu ahaa 9% kadib sanado kadib wuxuu isla madiinadaas waxa ka dhacday in ay noqotay 19% 19% 10 sano hadana kadib furiinka hadana isla madiinadaas wuxuu noqday 30% furiinka laakiin nisbatu talaaqi furiinka nisbadiisi 8 bilood kadib isla madiinadaas wuxuu noqday 49% waa lambar naxdin leh walaalayaal 50% guurki inuu ku soo dhamaado furiin waa wax aad iyo aad u xun magaalooyinka qaarna waxa dhacday in furiinka uu gaaro 60% taas waa lambar aad u weyn oo burburi karo mujtamaca islaamiga iyo mujtamaca adduunka ku nool oo idil sidaa darteed ayuu barnaamijkeenu inuu ahaaday tababar nololeed ee ku saabsan nolosha guurka saxaafadaha qaar mid kamid ah ayaa waxay qortay caado ayaa waxay noqotay mid ka soo muuqatay wadamada caalamka kamid ah wuxuu caadadaas la magac baxday caadada furiinka sanadka koowaad يعني wiilku markuu guursado bil kadib ayuu furaa ama badhe 2 bil kadib ama badhe 6 bilood kadib ama 1 sano kadib ayuu furayaa gabadha runta waxay tahay walaalayaal ninka gabadha uu qabay furay bilooyin kadib ama sanad wali ma baran gabadhaas waxa ay tahay gabadhu sideeda ayada laftirkeeda ma baran ninkeeda waxa uu yahay laakiin waa isfureen waa kala tageen caadada furiinka sanadka koowaad walaalaha mid kamid ah ayaa wuxuu ka sheekeynaa wuxuu yiri xaaskiisi ayaa waxay u raadinaysay wiilkeedii gabar ay guursadaan waxay u tagtay qoysas aad u fara badan 26 qoys ay u tagtay gabadhooda ayada oo ka rabto in ay u guurso wiilkeeda guryaha ay tagtay dhamaantood waxay ahaayeen guryo islaam oo dhaqan islaami dad wanaagsan oo muslimiin deganaayeen waxay ku kadsoontay markay aragtay 21 gabdhood oo kamid ah gabdhahaas in la furay oo horay loo soo furay la guursaday maalmo 2 ama 3 ama asbuuc bil 2 bil maalmo loo guursaday si khudbad sire ama si caadi oo maxkamad iyo caadi loo guursaday sax ee sharci ah laakiin muhiimadu waxay tahay in la soo furo gabdhii maalmo kadib ama bilooyin sababtu maxay tahay aniga waxa aaminsanahay laga yaabo in adikana la aaminsantihiin caruurteena gabdhaheena wiilasheena annaga laftirkeena inaanan u tababarin caruurteena nolosha guurka dhanka iyo guurka inaanan u tababarin
sidaa darteed ayuu programkan inoogu ahaaday tababar ku saabsan dhanka guurka walaalayaal adduunka mujtamacooyinka ghayrulmuslimka ee muslimiinta aan ahayn maanta waxay u hamuun qabaan sharqi iyo qarbi meel kastaba qoys waxay u hamuun qabaan soo saarid usro iyo caruur iyo dhalmo ilmo la dhalo iga qora hadalkan adduunka caalam sanadaha soo socdo waxaa dhici doona dowladooyin Yurubiyan ah oo ka baxo adduunka dhan ka tirtirmo waxaa la helayaa taqniyaad waxaa la helayaa aalado waxaa la helayaa jaamacadahooda waxaa la helayaa waxyaabihii dakhli tabiiciyaadka ay lahaayeen dhulkii laakiin lama helayo insaan qof taagan ee wadanka u dhashay lama helayo qomku ma dhalayo ma guursanayo qoys usra ma sameynayo inkasto markasta ay insaan la'aan ay haysto markasta ayaguna ay burburaan sidaa darteed anagana walaalayaal dhammaantan waxaan macna ugu fadhinaa inaan soo saarno qoys ilaalinana qoyskaas annaga aan soo saarnay jariimada ugu weyn aad gashid waxay tahay adduunka dhulka inta joogto aad gashid in aad qoys kala firfirtid aad kala burburtid ama aad si qaldan oo la macaamishid xaaskaagi ama gabadh oo la macaamisho ninkeedii arrimaha noocaas anaga ka duuleeno sida ay u ahaatay programkeenan dowrah ta'hiiliya li hayati zawjiya dowradan waxaan uga hadli doonaa walaalayaal mawduucyo kala duwan waxaanu ka sheekeyn doonaa tababarka nolosha guurka tababar nafeedka ee qofku uu isku tababaranayo guurka waxaan ka hadli doonaa waa maxay dadka waxa ku riixa guurka maxay u guursanayaan waxaanu ka hadli doonaa doonashada gabadha waxaanu ka hadli doonaa ikhtiyaaru zawja sidee u dooranaysaa xaaskaaga sidee gabadhu u dooranaysaa ninkeeda waxaanu ka hadli doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo caqdiga heshiiska nikaaxa sida uu dhici doono waxaanu ka hadli doonaa waqtiga u dhaxeeyo caqdiga iyo cursiga intaas maxaanu sameynaynaa ilaa waa waqti meesha ku jire maxaan sameynaynaa intaas waxaanu ka hadli doonaa hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka raali noqdo xukmu zawaaj xukunka guurka waxaanu ka hadli doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo dacwada islaamka uu inoogu yeerayo guurka waxaanu ka hadli doonaa sida gabadhu ay la macaamili doonto qoyska ninkeedii sida wiilku ula macaamili doona qoyska xaaskiisa waxaanu ka hadli doonaa laylatul ursi habeenka aqalgalka waxaanu ka hadli doonaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam sida uu ka rabo wiilku inuu noqdo waxaanu ka hadli doonaa gabadha xaaska ee sida uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka rabo inay noqoto kadibna iyo cudur daar wala maarmaan inaanu ka hadalna mashaakilka iyo waxyaabaha khaladaadka ee dhexdeena ka dhaco sideen u xalina nolosha guurku waxay leedahay khaladaad iyo maxalla dood isqa qabsi sideen u xalina har rumaysanina guur dood la'aan ah laakiin sidee ula macaamilna doodaas iyo isqa qabsigaas iyo waxaas dhexdeena ka dhacday waxyaabahaas annaga dhexdeena ka dhacay see uga hadlina waxaanu ka hadli doonaa nuqdooyin aad muhiim ah oo ku hareereysanayo maxaa la dhahay xalinta mashaakilaadka kadib waxaa ka hadli doonaa dalaaqa sababtoo ah ninka diyaaradda sida loo duuriyo bartay waa in uu bartaa sida diyaaraddaas hawada lagu hayo loona soo dejiyo maahan kaliya inaad baratid sida diyaaradda loo duuliyo aadna baran sida loo soo dejiyo sababtoo ah haddaad barat sida loo soo dejiyo meel xun ayaadna gelin doontaa dhammaadka dowradanna waxaanu ka hadli doonaa dhammaad wasiye ah oo mufiid u ah wiil kasta iyo gabar kasta oo guur rabto iyo mawduucooyin kaleeto oo idin farax gelin doono insha allahu tacaala في الدورة التأهيلية الحياة الزوجية وحنو لما يصير دونا غوس كدب إن الصعدة